sargaal ka tirsan al-shabaab ayaa isku soo dhiibay ciidamada ammaanka ee koonfur galbeed Soomaaliya. Xuseen Cali Geesay ayaa war arrinka ku aadan inoo soo diray. arrintaas kulay ma qaragay mana program iyo dadka dhaadhiyaan iyo mana walbanka jarnaa iyo al-shabaab mowqifka ay ku taagan tahay sax ahaanshihiisa waa mid uu muranka taagan yahay. Ibraahim Xasan oo kamid ahaa saraakiisha aan sidaasi magac u lahayn ayaa waxa uu isu soo dhiibay ciidamada dawladda Soomaaliya. Waxa uu helay soo dhaweyn wanaagsan, balse Ibraahim ma aaminsanayn inuu soo dhaweyntaasi heli doono. iyo macna kulay wadan oo hagnagadano dadku waalidiintii hagnagadano nimankaas oo wadaanka oo fikrada ka dhaadhiyeen fikradaas isku toosheeno oo ilaahay dirsan toosheeno dadku dadku qoyan ee qoodsadeen أنا سؤالك كان هدأن أنت هكتبتي هدأ أنا ما ذاك هرمي كتبي بولفولاي كوران كدي مركي بولفولاي كتبي البشير كوي البشير مركي أنا كتبي يا مركي سفركن مركز كده هدنا سفركن باهي kala shaki badan ayaa ka dhex jira al-shabaab dhexdeeda iyadoo askarta dhexdeeda aan iska warqaadan balse qof kasta waxa uu aaminsan yahay in uu diin u dagaalamayo. Ibraahim ayaa mar kale inoo sharaxaya كل يوم دور بس كجرا دور بروجو أنا حب لك هاي عمل لهاي أو بعد هذا اللي أردنا هذا بمنا دبعت لك إنجيل جالس دم ما يلك ليه لمصلحة لك إنجيل لك ليه يوم كسوان أو بعد ورك بدي أدي بالك إنجيل نفسه لك إنجيل بدأ مركز تجمع الروجان كل لما تقف أسكت لما تقف ميل الروجان يوم مسورة سدايان لما لانك شكل سيني مصلحة كلام مسورة سدكوران ساس منا درتيه mowqifka al-shabaab ayaa ah in diin loo dagaalamo, balse arintaasi ayaa dhammaan kuwa ka soo goosta al-shabaab aan isku raacin in diin loo dagaalamo. Hase ahaatee waxaa jira dhalinyaro aan ka go'nayn in ay u dagaalamaan al-shabaab, waxaase ku qasabtay daruufo la xiriira ka badbaadinta qoyskooda. Waxaa arintaasi ka jawaabaya Cali Unsow Maxamed oo toddobaad ka hor isu soo dhiibay ciidamada dawladda. شباب ولقي ورم فضنا فاهمني ودك بعدين مفضلهم لكن دمي كسفتي والولب ظروفتك كسب عسير ده تدبو قد يعني مكفرنا أني أنتقوا مرق ده دبو قالوا مرق ده دولة ساس ككبيرو رجيسنا دبو يعني نيبوا شيء مرق ده دولة سكيرة مرتي dawladda Soomaaliya ayaa dadaalo ugu jirta sidii ay guulo muhiim ay ugu gaari lahayd dhalinyarada ku maqan goobaha ay ka taliyaan al-shabaab. Mas'uuliyiinta dawladda ayaa aaminsan in dhalinyarada la marin habaabiyay isla markaana waxa aan jirin loogu biiriyo kooxda al-shabaab. Waa kan gudoomiyaha degmada Buur-Xakaba Maxamed Ibraahim Nuur Wantem oo ka waramaya. runtii sidoo sanin sheegay in uu markii hore ka biiritaan jay fikrad wal saadin hayna lan sheegay oo hamarka shaqeeyo haaye bankuga iska shaqeysado oo la tashkiiliyay in harakada al-shabaab ma aanan ma raashin kariyaas la aray sidii hamar lahan ku waday oo la jeeyay marka dibna oo sidoo sanin sheegay in uu qasab dhibow la ka galiyay ilaa saako ibaado ka sii jeeyay dadkii iska saaydoon la ka dheerayay 3 sano ka tirsanay harakada al-shabaab oo runtii in badan uu sajaanis weydiyay oo jaanisna aan waaye oo ilaahay fursad hansi hadigay inuu sabaxo dadkii walaalmeesha haayeen oo degmada Buur-Xakaba hanas dhiibay ya ilaahay gadari inuu sadigay hana deere. Waxa wali muran uu ka taagan yahay mowqifka ay u dagaalamaan al-shabaab iyadoo dhalinyarada inta badan ay sheegeen in xoog loogu askariyeeyo iyadoo kuwa kale loo soo bandhigo inay u dagaalamaan diinta Islaamka. Xuseen Cali Geesay, RTN, degmada Buur-Xakaba.